katimey katim kow caruurtaada la ciyaar soo ma jeedid caruurtaada la fadhu ku dirir soo ma jeedid xaaskaaga aad arabta gariir la ciyaar dowladdii kacaanka ilooyinkii biyaha ay u samaysay ay badda ku shubaay way xirmeen waddooyinkii oo dhan biyo ayaa xiray daad wato oo xoog ku socda oo xoogan mootooyinkii biyo ayaa qaaday dowladdu maysan u gurman falkaa wuxuu caddaynayaa fal aan saxsanayn dowladnimada aan ku habboonayn dad aan dadka u aabbayeelaynin u naxaynin baahidooda dhibkooda cabashadooda aan waxba ku falaynin ciidankii ayakaa haysta hantidii way haystaan goobihii dadka lagu xirayana ayakaa ka taliya saldhigyadii degmooyinkii xabsiga dhexe nabad suguddii kuwa hantida ummadda dhaca dowladdii ka tirsan yihiin kuwa laaluushka qaato dowladday ka tirsan yihiin wasaaraddii caafimaadka daawadeediyaa la gatay shacab maa gatay may isla wasaaraddii dad ka tirsanaay baa gatay hormuud inay xoolihii dalka oo dhan ay haysato waxay leeyihiin dhismihii waa buruuj korontadii waa beeko dhismihii isgaarsiintii waa hormuud bangiyadii waa salaam bank waxaasoo dhan waxay ka mid tahay shaqo abuur bismi illaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah waa shantaay oo maalmahan asxaabtiisa iyo asaga ay kala maqnaayeen dib iskugu soo laabtay allah ayaa mahad iska leh maanta waxaan rabnaa aniga iyo dadka igu xiran inaan codkayna ku biirino garab istaag u samayno wadayaasha bajaajleyda haddii muwaadin jiro ragga 23 jiryaalka amba 20 jiryaalka ay daadoodu u dhexayso 20 jir iyo 23 jir ayaa muwaadiniin ah 5 qodob ayay nimanka kulansadeen dhalinyarada qodobka koowaad waxay ka baaqsadeen oo ilaahay ka baajiyey labadii waalid ay dhashay ay dhibaato ku soo korisay inay mar labaad ka ooyinsiiyaan ay dhibaato u keenaan ay tahriib aadaan ay qolyaha dadka gadata ay Soomaalidu magaca qaldan ay u bixiyeen magafaha ay ugu yeeraan inay u gacan galaan way ka baaqsadeen waxay ku qanceen dalkooda inay joogaan dhibaato kasta oo ka jirto waxay mar labaad sameeyeen shaqo abuur 80% bajaajleyda mootada ay kaxeeyaan kira ay ku wadaan $10 waxaa ka sugaya milkiilaha mootada iska leh ama $8 macaash buu ka rabaa uu ka raadinayaa reer buu ka biilaa shidaalna way ka rabtaa canshuurna waa laga qaadaa waxaa soo korortay in la yidhi mootadii waxaa loo qaybinayaa A iyo B oo waa la rinjiyeynayaa way ku qanceen maxaa yeelay amarkan wuxuu ka soo baxay waddankan dalka haysta ay dowladda ka ah ciidankii ayakaa haysta hantidii way haystaan goobihii dadka lagu xirayana ayakaa ka taliya saldhigyadii degmooyinkii xabsiga dhexe nabad suguddii garsooraha gobolka banaadir fadhana ayakaa biila marnaba
kama faga karaysid waxaad ku qasban tahay marka inaad warkooda iska yeesho 35 dollar ayaa laga qaaday way u hoggaamsameen maalinkii jumcaha khudbadii labaad ayuu bilowday roobkii dowladdii kacaanka ilooyinkii biyaha ay u samaysay ay badda ku shubaayay way xirmeen wadooyinkii oo dhan biyo ayaa xiray daad wato oo xoog ku socda oo xoogan bajaajleydii mootooyinkii biyo ayaa qaaday dowladdu maysan u gurman falka wuxuu cadeynayaa fal aan saxsanayn dowladnimada aan ku habboonayn gaar ahaan gobolka Banaadir waxaa loo baahnay degmo walbo ay dhibaatada ka dhacdo gudoomiyaheeda iyo gudoomiye ku-xigeenkeeda inay halkaa istaagaan mootoleyda ay dhibka la qaybsadaan inay ugu yeedhaan wiishashkii ay garab siiyaan ay biyaha qodda ka galaan ay u muujiyaan inay waxba ka hagaranaynin ma dhicin asmaada qiyaamaha nabigu sallallahu alayhi wasallam markuu tilmaamayay ashraadu saaca waxyaabahoo tilmaamo waxaa ka mida wa jawri suldaani talada waddanka waxay gacanta u gelaysaa buu yidhi dad aan dadku u aabbayeelaynin u naxaynin baahidooda dhibkooda cabashadooda aan waxba ku falaynin markay albaabadooda qaraacaanna albaabaday ka xirtaan markay cabashaan ay cabtaane cabashadooda ma dhegaystaan markay baahidooda ay ka hadlaana baahidooda kama jawaabaan nebigu sallallahu alayhi wasallam waxyaabahu tilmaamay waxaa ka mida oo maanta taagan maaha shalay maanta taagan in xilka loo tartamo lacag lagu bixiyo la kala gato asmaada qiyaamaha ka mid tahay waxaa asmaada qiyaamaha ka mid ah amaanada in la dayaco waxaa maanta dowladnimada Soomaaliya oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaala ay raadinayaan ay baadi goobayaan waxa diidan maahan shacabka gobolka Banaadir ee waxa diidan xayndaabka dowladnimada dadka ka tirsan sida cadaynta aan ku hayno oo wariyahan weyn ee la yiraahdo Xuseen Cabdulle Maxamed oo qoraalna ku cadeeyay muuqaalna ku cadeeyay kuwa hantida ummadda dhaca dowladii ka tirsan yihiin kuwa laaluushka qaato dowladii ka tirsan yihiin wasaaradda caafimaadka daawadeedii la gatay shacab ma gatay may isla wasaaradii dad ka tirsanay baa gatay wasaaradii maaliyadda xoolaheedii la dhacay dad wasaaradii maaliyadda ka tirsan baa dhacay xil baan in loo magacaabay horay ayuu wuxuu u dhacay hantidii dadweynaha dowladii uu dhacay 9 sano lagu xukumay xilkiisa ma dhamaysan isla xil maaliyadeed baa loo magacaabay isla dowladan waxa soo dhan waxa lagu hayaa dowladda maanta jirta iyo kuwii ka horeey dad hanti dadweyne hore u dhacay in isla maanta xil dowladeed loo magacaabo ay hadala loo dhiibo meel hanti ay taalo waa kaafiga kala dheeri waxa baraha bulshada ka daawanaynay oo nii soo gudbinayna 20 jir ka baaqsaday inuu bad ku dhaco yaxaas badeedku inuu cuno qolada mooryaanta ay dadka iibsata inuu gacan galo ku qancay inuu dalkiisa hooyo joogo ku qancay inuu shaqaysto oo wax soo saar sameeyo hooyadii iyo aabihii uu dib ugu celiyo bajaajleyda dhalinyarada wado ninkaan reer lahayn wuxuu biilaa naftiisa wuxuu biilaa aabihii iyo hooyadii buu biilaa waa nin dhalinyara
oo u baahan in la dhiirigeliyo lasii gacan qabto la yidhaahdo mahadsanid. qaarkood 4 caruura 9 caruura 11 caruura 5 caruura 7 caruura ayay ka biilaan, waxbarashay ka bixiyaan, gaari raacay bixiyaan, uniform bay bixiyaan, ijaar bay bixiyaan, korontay bixiyaan, biyay bixiyaan. intaa waxay ka soo saaraan mootay ka soo saaraan. mootadaasoo ah shidaal bay ka rabtaa, ooliyo bedel bay ka rabtaa, canshuur bay ka rabtaa. waddadii uu marayane biyuu ka mari laaya, ma shaqaysa kariyo. wuxuu ku qancay in la yidhaahdo bisha 15 maalmood 30 maalmood 15 maalmood howlgab baa tahay, 15 maalmood shaqayso. waa muwaadin bisil, dowladnimada u bisil. waa muwaadin jecel dalkiisa. waa muwaadin rabo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda gobolka Banaadir inuuna ka hor imaanin, oo bisil inuu maqlo inuu u hogaansamo. laakiin waxaa la leeyahay madaxdii dhalinyaradaas inay dar yeesho, cabashadooda in inta laga fadhiista la aqbalo, wadooyinka biyaha looga qaado, biyihii meelihii ay marayeen la diyaariyo, si biyuhu markay ay roobku da'o ilooyinkii biyaha qaadayay badda ku shubayay in la diyaariyo. waxaan halkan kaga mahad celinayaa wariyaha weyn Allah barakeeyo Xuseen Cabdulle oo maalin walbo dalkan iyo dadkan u shaqeeya, wararkiisuna ay ku salaysan yihiin xaqiiqda iyo runta. waxaa kaloo halkan inaan kaga mahad celiyo wasiirka cadaaladda social media oo maalin walbo ummadan Soomaaliyeed dhibka haysta ka hadla. madaxdu markay ummadda dhibaateeyaanne dhibka inaan ummadda la dhibin ka hadla. runtii gobolka Banaadir shacabka ku nool waa shacab bisil oo diyaar u ah dowladnimada laga faa'iideysan karo. 3 qodob baan rabaa inaan iga dabageeyo. nin raga ay hantidiisii in la wadaago oo shirka lagula noqdo aqbalay ka waran, ay aan dagaalamin, ay aan mucaarad samaynin, ay aan mucaaratamin, ay la yiri mootadaada la buufinaya, waa la rinjiyeynaya, oo aqbalay. ay la yiri AEB ayaa loo kala qaadaya, ninkii 2 mooto lahay xataa la yiri ma kala dowra kartid, uu aqbalay. waxaa kaloo la yiri kiradii canshuurtii dowladda hoose ee kaa qaadan jirtay waa sideedii, waxba lagama dhimaayo. haddana la yiri 15 maalmood baad shaqaysanaysaa, 15 maalmoodna batuuladaada la sheekayso, gurigaaga joog, caruurtaada waxaad la ciyaartaa dhuudhumushow la ciyaar, katimkow caruurtaada la ciyaar. soo ma jeedid caruurtaada la fadhu ku dirir, soo ma jeedid xaaskaaga aad rabta gariir la ciyaar. waa ku qanceen. wadooyinkiina meel la maraa la laayahay. gudoomiyaasha degmooyinku maxay qabtaan? maxay magaalada Muqdisho ku soo kordhiyeen? ma jiriyaa gudoomiye u bisil aan una diyaarsan degmada uu joogo inuu diyaariyo wadamarista shacabka ku nool iyo shacabka gobolka Banaadir ku dhaqan isku si inay u isticmaalaan si dhibaato la'aan. haday tahay xagga nadaafada, xagga bilicda, xagga isku socodka, biyahan wadooyinka daadsanne yacni booyadihii iyo wixii fududay lahaa inuu diyaariyo maya, laba haya. gudoomiye walbo mushaarka gobolka Banaadir kaga imaanaya iyo wixii uu xadi karo ayuu ka diyaarsadaa oo ka fiirsadaa, bis ilmuhu ka korsadaa. shacabka gobolka Banaadir inta ka warqabo shacab bisil oo dowladnimada u bisil oo diyaar u ah madaxdooda inayna ka hor imaanin waaye. laakiin aaway madaxdii ka faa'iideysan lahayd. dadkii maanta guryihii biyaha ugu galay
dad baa maanta ilaa iyo maanta joodarayaashii ay isticmaalayeen ayay isticmaali kareen. qaar way ureen, joodari biyo galeen waa taqaanaa ee aan weli qoro xilin. qaar agabkii gurigii yaalow dhan baa ka halaaway, biyaa qaaday, gurigiyaa buuxsamaaba biyo dartood. idan marka guddoomiye Madaale waxyaabaha dhihi jirta waxaa ka mid a waxaan rabnaa shacabku inayna la xisaabtamaan, waxaan rabnaa shacabku inayna hor yimaadaan, waxaan rabnaa shacabku inayna dhaliilaan, waxaan rabnaa shacabku inayna la xisaabtamaan. lacagta $35 ee bajaajileyda ka timiday waxaa laga rabaa maalinka barnaamijka AEB oo dhamaado guddoomiye Madaale inaad u cadayso lacagtaa meesha ka timiday iyo tiradeeda iyo waxaad ugu qaban doonto gobolka Banaadir. ma wax xusuus qor ah xilka amba waa ka tegi amba waa ka dhimani amba wuu kaa dhamaanaya. guddoomiye aad u dhegeyso warkayga. xilka wasiirkii maaliyadda dowlad goboleedka Puntland ninkii Xasan Shire Abgaal weligii muusan ku fikirin madaxweynaha Puntland inay kala tagayaan. wasiirkii ugu saameynta badnaay ayuu ahay Puntland, wasiirka maaliyadda. way kala tageen. madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa isku fiicantiin, laakiin allahu aclam inaad xilka la dhamaysanayso. xilka ama waad ka dhimani adigoo hayaad ka dhimani, ama xilka wuu kaa dhamaanaya oo maamul cusub baa imaan doono, ama wareegta madaxweynaha kaga tegi doontaa. saddexdaasay mid noqonaysaa guddoomiye Madaalow. qodob afaraad ma jiri doono, ha sugin. waxaa lagaa rabaa xisaabtan furan inaad la timaado. dunida markaad warbaahinta la hadlaysaan waxaad dhahdaan dunida casriga ahaan la tartamayna. dunida casriga waxaan aragnaa ra-iisul wasaare shaqo laga iriyey, wasiir $1 ee dowladdu ay lahayd taxi ku raacay ee shaqo loogu iriyey ee joornaalada iyo websaydyada iyo telefishinada caalamku ay baahiyeen. waxaa laga rabaa lacagtan inaad caddayso. bajaajtii waxaa ka soo xarootay intaa. gobolka Banaadir shacabka ku nool intaas iyo intaas oo mashruuca ayaan igula qabtay. hadday tahay ilooyinkii biyaha qaadayay oo la yidhi dib u habeyn baa lagu samaynayaa, waddadaas baa lagu dhisayaa, waddadaas baa dayactir looga sameeyey, amba iskuul weyn oo ah dugsi hoose, dugsi dhexe, dugsi sare oo caruurta agoonta iyo caruurta booliiska Soomaaliyeed ee danyarta ay wax ku bartaan oo aad ka tagto waa ku samayn kartaa. waxaa kaloo laga rabaa guddoomiye Madaale oo lagaaga fadhaa barnaamijkan A iyo B inuuna naqan mid mashruuc lacag laga sameeyo keliyahe. ciidankii A iyo B u kala saarayay bajaajileyda saxmadii iyo ciriirigii dhimayey na inaad diyaariso. waddanku ma laha ciidanka waddooyinka ma laha. waa fariintan waxay ku socotaa guddoomiye Madaale. waddanku ciidan waddooyin ma laha. waa in la helaa ciidankii waddooyinka ee taraafikada ee waddooyinka hagayay ee saxmadda iyo ciriiriga iyo jaamka dhimayey waa in laga helaa. waan soo dhoweynayaa, waan ku faraxsanahay in amarkaaga loo hogaansamo, in taladaadu ay shaqayso, iyo saxmaddii iyo ciriirigii inaad dhahdo waan dhimaynaa. waan soo dhoweynayaa, laakiin waxaa laga rabaa inay noqdaan wax muuqdo oo miro dhala, oo hergala, oo la arko, oo noqdo itusi itaabsi.
laakiin haddii 3 bilood iyo bisha ugu horeysa la yiraahdo waa la wadi waaye waa lagu daalay Soomaali ma bisla Soomaali war maqli mayso war ma naqanayso waxa biri imaanayaan ka hadlaynaa gudoomiye madaale Soomaalidu gobolka Banaadir ku nool wax way maqlaysaa waa kuwa ku qanco markii la yiraahdo 3 maalmood wadooyinku way xiran yihiin waa kuwa wadooyinka ku suuxaya haweenkooda ee baabuurta booliska lagu qaaday gudoomiye madaalo waa shacabka gobolka Banaadir way dhacday kuwa maanta markii la yiri AEB ayaa niila kala saaraa 15 maalmoodna howlgab baan igala dhigayaa 15 maalmoodna waa shaqaysanaysaan waa kuwa ku qancay waa kuwa ku qanacsan wadooyinka ay mari lahaayeen inay biyo ka mari waayeen laakiin waxaan ka rabnaa mashruucu inuu naqan mashruuc lacag laga sameeyo oo noqdo mashruuc dawladu ay ka dambayso oo ciidankiisa leh ee ciidankii wadooyinka leh ee ciidankii taraafikada leh ee saxmadii iyo jaamkii iyo ciriiriga dhimo oo hoos u dhiga laga rabaa waxa laga rabaa nin magac leh oo mug leh oo miisaan leh ayaa tahay waxa tahay nin wadaada dadku waxay kugu xamtaan inaadan ahayn nin tuug ah dadku saasay kugu xamtaan markii Doorbin iyo Aljazeera iyo Ifriiq hoteelada markii la joogo iyo Las Cafa iyo Hayat Mall suuqyada waaweyn waxa lagu xamtaa nin aan tuug ahayn inaad tahay laakiin waxa laga rabaa inaad daacadnimo mashruucan aad ugu shaqayso lacagtaana gobolka Banaadir baa iska leh gobolka Banaadir inaad dib ugu celiso oo ummadda aad wax ugu qabato wadooyinkan dhibaatada badan ay la mari laayahay inaad wax ku qabato wadooyinkan biyaha ay daadsan yihiin gudoomiyaashii degmooyinka ee adigu aad magacaawdo inaad kala xisaabtamto hormuudna hooshay qabato waan soo dhaweynaynaa ilaahay xoog ahni barakeeyo xoolaha Allah ni barakeeyo shaqaalihiina Allah ni wanaajiyo kuwa amaanada ilaaliya oo amaanada guta oo aan qiyaanin oo xoolihiina xadin Allah nigaga dhigo madaxda shirkadda hormuud xooga iyo magaca iyo dadka iyo deeqa iyo caruurta Allah ni siyaadsho wadankan xaq badan baa ku leedihiin dalkan iyo dadkan xaq badan baa ku leedihiin kama shaqaysatiin waad u shaqaysaan dad baa aaminsan hormuud inay xoolihii dalka oo dhan ay haysato waxay leeyihiin dhismihii waa buruuj korontadii waa beeko dhismihii isgaarsiintii waa hormuud bangiyadii waa Salaam Bank waxaasoo dhan waxay ka mid tahay shaqo abuur saboolnimada hoos loo dhigo waagamuudada hoos loo dhigo tahriibka dhalinyarada oo la yareeya waxa Salaam Bank ka shaqeeya waa dhalinyaro waxa buruuj ka shaqeeya waa dhalinyaro waxa beeka ka shaqeeya waa dhalinyaro waan soo dhaweynaya anigu uma shaqeeyo wax ima taraan mashruuca aniga wato kama qayb qaataan maalin hore daadkii iyo biyihii dhacay hormuud waxay ku lahayd xog badan bay kaga bixisay ida ummadda u soo kurmisay waxay sameysay 2 qodob booyada ayay keentay biyihii wadooyinka ka dhuuqa waxay keentay shaqaalaheedii iyo ciidankeedii oo 2 qodob oo aad aan ugu bagay oo aan ugu duceeyay waan xanuunsanaay sameysay waayeelada iyo caruurta inay biyaha ka gudbiyaan aad baan u soo dhaweynayaa insha Allah taala shacabka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay meel kasta aad joogtaan shirkadda hormuud ilaashada hal difaac maalintii difaac u baahato shirkadu cadow badan bay leedahay hal loo duceeyo insha Allah taala wadankan cid kasta oo daacad u ah oo rabto inay u adeegto ee aan rabay inay ka adeegatana waan u duceynaynaa Hussein Abdulle iyo wasiirka cadaaladda social media-na waa u mahad celinayaa shaqada ay ummadda u hayaan dhaliisha ay madaxda ay dhaliilayaan madaxda kuwa tuugaha ku jiro biri ayaan rabaa inaan ka hadlo kuwa tuugada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi